runtii waa maalin farxad weyn, waa maalin aan la qaybsanayno ardayda waxbarashada heerka koowaad maanta ka gudubtay ee halka magacyadooda laga soo jeediyey ee 190 arday ah ee kulliyadaha kala duwan ee cilmiga bulshadu u baahan tahay bartay iyo waalidkii ku soo tiiriya tacabbeelay oo waqtiga badan geliyey. waxaan la qaybsanaynaa farxaddaas oo farxad u weyn maanta ay haysato waalidiinta oo runtii xaqiijiyey himiladoodii ahaa inay ubadkooda barbaariyaan oo meel gaarsiiyaan iyo ardaydii u dhaga nuglaata waalidkood oo waxbarashadaas dhamaystay. runtii maanta waa maalin dowladda Puntland farxad u ah. waxaad ogtihiin markii 98 la aasaasay oo dalka dowlad iyo kala dambeyn iyo nidaam dowladnimo uu u jaan qaaday oo amnigii ciidamadii qalabka siday ay sugeen dadkii aqoon-yahanka ahaa ee markaas isla sanad kadib ayay ku fokereen inay jaamacad iyo galeelaan jaamacadda ugu horreysay oo geyga Puntland ka hela qaaday. haddaan dowladnimo aysan arag oo aysan dalku dowlad ay isku halayn karaan ay jiri lahayn way adkaan lahayd inay jaamacad ku fakeraan. maxaa yeelay jaamacaduhu waa maalgelinada xagga tacliinta kuwa ugu adag. marxaladda dugsiyada hoose iyo dhexe iyo sare way sahlan tahay, laakiin inuu dal jaamacad yeesho howl sahlan ma aha. marka waxa ugu horeeya oo guulaha aan gaarnay saldhig u ah waa dowladnimada, oo tiirka dowladnimada saldhigga u ah waa ciidan ammaan iyo nabadgelyo ay kaliftay faracyada tirada badan ee gudoomiyaha jaamacadda uu sheegay in la wada gaaro oo arday 8,000 oo arday jaamacaddan kaliya ka baxdo oo sanadkan kaliya 1,200 oo arday ka kala jabinayso oo ardayda dhigatay 4,500 iyo wax ka badan yihiin. intaas waxaa saldhig u ah oo hooyo u ah waa nabadda islaan ciisana ka sheekeeyey. marka waajibka la rabo dhammaan bulshada reer Puntland iyo Soomaaliyeed inay ilaaliyaan oo ugu weyn waa nabadda iyo dowladnimada oo lagu fara adeego. horumarka aan rabno inaan tiigsano dhan labadaasaa gudhig u ah, waana qabaa geedi socodka aan ugu jirno nolol tayo leh oo qanaaco leh oo qof walba meesha uu ku hamiyayo uu gaaro. waxaan ku gaari karnaa waa dowladnimo. marka dowladnimadaas in lagu far adeego waa fariinteeda koowaad. fariinta labaad dhinac waa farxad oo arday intaan la eg keligiin maahan sida la sheegay 1,200 oo hal jaamacada annagoo og inta jaamacadeed ee Puntland leedahay ayaa soo kala jabinaysa. dhinaca kale waa challenge haysta hoggaanka dowladda. maxaa yeelay jaamacaddu kaalinteedu waa ka soo baxday, waalidku kaalintiisu waa ka soo baxay, ardaydu kaalinteedu waa ka soo baxeen. waxa la rabo waa in dowladdu ay la timaadaa siyaasadii jihayn lahayd ardaydaas oo wixii ay wax u baranayeen oo ahaa inay qayb ka noqdaan horumarka bulshadooda ugu jirto inay nolol wanaagsan gaaraan sidii ay u heli lahaayeen meeshii ay ka howlgeli lahaayeen. arrintaas arrin sahlan ma aha. runtiina waxay ka mid tahay qodobada ugu adag ee dowladda hor yaalla marka laga soo tago sugidda amniga. qodobka ugu muhiimsan oo inta kaleeto dowladnimada ah oo marka la isku duubo dowladnimada macnaheedu ay tahay in bulshada loo adeego. adeegga ugu weyn oo na laga sugaayo
waxay tahay adeegii aan bulshada u qaban lahaa ciddii qaban lahayd oo idinka ah ardayda ah sidii aan u siin lahayn fursaddii ay ugu adeegi lahaayeen bulshada bulsho kasta oo meel fadhida dowladdu hoggaanka sare markay hayso waxaa laga shaqeeyaa waa 3 qaybood qayb hay-adaha dowladda u shaqaysa qayb hay-adaha gaarka loo leeyahay ka shaqaysa iyo qayb iskood u shaqaysta wadamada maraykanka marka mitaal loo soo qaato dadka iskood u shaqaysta oo ganacsiyada yaryar iyo hal abuurada leh waxaa lagu qiyaasaa 60% dhaqaalaha maraykanka inuu ku tiirsan yahay dadka hal abuurka leh entrepreneurka la yidhaahdo sideedaba adduunka dowladaha wax u shaqeeya waa dad kooban dadka badankiisu waxaa la rabaa inay iskood u shaqaystaan iyo hay-adaha ama shirkadaha isu tegay ay ka shaqeeyaan maxaa yeelay waxa kobaca dhaqaale keena waa iyaga marka fikradaha inta badan dadkeenna ka khaldan oo ah dadkoo dhan inay dowladda rabaan inay u shaqeeyaan aragtidaas waxaa la rabaa bahda waxbarashada inay dib u eegto oo ardada markay barbaarinayso aysan dhinaca aqoonta la yidhahdo akadeemiga keliya ay ka dhisina sida adduunyada horu martaba ay sameeyaan waxyaabaha xirfadaha ama skilliska ah ay soo saaraan waxaa inta badan la kulmaa arday raba inuu ku shaqeeyo maadada uu barta keliya waxaasi tacliinta casriga ah ee maanta la joogo waa ay ka hormarto waxaa la rabaa qofku inuu hadba shaqada furan uu ka shaqeeyo shaqooyinka adduunku waa isbedbedelaan haddii shaqo ka mid ah qofkii shaqadaas meesha laga baxay oo mithaal waxa u ah dalka ingiriiska markuu wuxuu ka guuray shaqooyinka la yidhaahdo industriga ama birta culus ee warshadaha soo saari jiray wuxuu u guuray dhinaca financial sector haddana dadkooda way wada shaqaynaya macnaheedu waxa weeye qofku shaqo cayiman ma leh waa inuu leeyahay xirfado kala duwan oo marba meesha ku habboon uu ka shaqayn karo waxaan runtii u baahan in tacliinteenna loo jiheeyo qof isku filan waxaad ogtihiin dalkan soomaaliya guud ahaan gaar ahaan puntland dad ajaaniba usoo shaqo taga oo tacliin la soo baray oo skills la soo baray oo dowladahoodu ay soo barbaariyeen annagana dhallinyaradeenu waxay inta badan leeyihiin inay shaqooyinkii ay haysan marka arrintaas waxay u baahan tahay daraaso intaa ka duwan shaqada ciddii abuuri lahayd iyo nooca shaqo ee abuurmi karta iyo sidii loo abuuri lahaa waxay u baahan tahay macallimiinta iyo maamulka madaxda ka ah maadada hadda halka laga sheegayo ee dhinaca businesska ama managementiga ama sida wax loo qorsheeyo oo qof walba inuu kooraskaas qaato oo elective noqoto uu u baahan yahay maxaa yeelay qof kasta oo wax bartay hadduu dhakhtar yahay clinigaa uu furan karaa hadduu veterinary yahay clinic xoolaa buu furan karaa qof kasta maado kasta oo la barto shaqay leedahay si uu u shaqaystay hadduu garan waayo ama uu xirfad u lahayn siduu u maamulo shaqadiisa gaarka ah wuxuu noqonayaa qof aan waxbaran oo kale oo caadil ah oo meel iska fadhiya marka waxaan u baahannahay manaahiijteenna oo dalal badan oo adduunka ka mid oo maraykanka ka mid yahay uu hadda dib u fiirinayo isagoo eegayo waxaa la yidhaahdo suuqa siduu guddoomiyuhu sheegay waxay ku salaysan tahay fursadaha suuqa ka jira fursadaha suuqeena ka jira waa ay badan yihiin waxay ku xiran yihiin hadba habdhaqan dhaqaaleedkeenna iyo awoodaheenna aan haysano dabcan dhaqaalaheennu wuxuu ku tiirsan yahay xoolaha nool wuxuu ku tiirsan yahay badda wuxuu ku tiirsan yahay macdanta wuxuu ku tiirsan yahay hal abuurka iyo adeega serviceska maxaa yeelay shacabkeennu waa shacab fircoon oo maskax furan oo haddii loo diyaariyo inay awood wax soo saar yeeshaan iyo aqoon iyo xirfado ay suuragashahay
meesha hadda anaga noola soo waarido ama noola soo dhoofiyo dad xirfadlayaala waxaad ogtihiin hadda iskuulaadkii iyo shaqooyinkii kulli waxaa lagala yimaadaa Kenya iyo India iyo waa dad la soo dhoofiyey waxaa la rabaa in ardadeenna xataa haddii suuqa uu ka buuxsamo ay awood u leeyihiin inay wadamada dariska iyo meelaha kale ka shaqayn karaan maadaama dhinaca ganacsiga iyo furnaanta ay kaga fiican yihiin oo dad fara badan oo Soomaali oo deegaanka u dhashay oo aan aqoon lahayn laakiin kartidi iyo maskax furnaan leh ayaa waxay tagay wadamada East Africa oo indhaha u furo shaqada baray marka haddii uu tago qof aqoontiina leh firfircoonaantiina leh dhaqaalaha ugu soo shaqeeyna dalka dib ugu soo celiyo wadamo badan oo Masar ka mid tahay waxay ku tiirsan tahay dhaqaalahooda dakhliga ugu yimaada dadka ay dibadda u dhoofiso oo soo shaqeeya marka qofka hadduu dhoofo inuu dalkii baan ka cararay yiraahdo dib ugu soo noqon maaha Soomaaliya ruuxadeeda burburkii kadib dadka badbaadiyay waa dadkii dhoofay oo shaqooyinka meelaha kale ka helay marka qofku markuu dhoofo laakiin uu hadaf leeyahay wuxuu weli ka qayb qaadanayaa bulshadiisa iyo deegaankiisa horumarkeeda marka waxaan aad u rajaynayaa in aqoonta habkan waan qalin jibinay oo mararka qaarkood iska noqon karta nooc faanka ka mid in laga bedelo uu noqdo wax tayo bulshada wax ku soo kordhin kara oo hadaf leh qodobka labaad oo rabo inaan isdul taago waxa weeye halka waxaa laga sheegay 6 arday ugu sarreysa inay 5 gabdho tahay arday ugu sarreeyana ay gabar tahay runtii waan ka mahadcelinayaa gabdhaha dadaalka ismada halka fadhiyo waxgaradkana waxaan ku boorinayaa marka ay shaqooyinka dawladda u raadinayaan ama xildhibaanada u raadinayaan inay ku dhisaan dalka dadka wax u qaban karo oo gabdhaha la soo horumariyo ruuxadooda gabdhaha haddiiba raggii tartankii aqoonta uga bateen waxaa la rabaa shaqooyinka dawladdu u baahan tahayna inuu tartan uu ku yimaado oo dadka dalka wax tari kara nambarka yar ee dawladdu u shaqaynayo waxaa la rabaa nambarka kartida iyo aqoonta leh oo dadka intiisa badan hogaamiya marka taasna runtii waa dhiirigelin iyo fursad markii sidaas oo kale tartan la geliyo waa soo baxay laakiin wiilashu waxay isu dhiganayaan kolley hadhow reer hebel baa meel ku tegaysaa waxbarashada waxu ku taraysa saas aan qaataani marka arrintaasna waxaa la rabaa bulshada inay dib u fiiriso maxaa yeelay dhaqanka bulsho leedahay madax dawladeed keliya ma bedeli karto waxay u baahan tahay in la iska kaashado oo la isla garto oo lagu heshiiyo haddii aan heshiis lagu ahayn way adag tahay madaxda siyaasadda go'aan noocaas oo kale inay qaadato maxaa yeelay deganaanshaha iyo is-ogolaanshaha bulshada ayaa horta saldhig u ah wax walba marka gabdhaha fursadaha ay waayaan siyaasiyiinta iyo dadka mas-uuliyiinta keliya ay canaanina waxaa la rabaa inay wax ka soo dhisaan bulshadu inay aqbalaan oo iyaguna farkooda dowrkaas ay qayb ka qaataan waana rajaynayaa ilaahay runtii maanta halka waxa uu ka furan waa dardaaran la dardaarmaya ardayda oo noloshii saxda ahayd oo dhabta maanta ay bilaabatay qofka marka uu graduate gareeyo wuxuu diyaar u yahay inuu bulshada ku soo kordhiyo hadda wixii ka dambeeya tacliin la sii wado mahal qofkii raba inuu akadeemiga iyo jaamacadaha ka shaqeeyo unbaa tacliinta sii wadana laakiin tacliintii la rabay inuu ku howlgalo waa digriiga koowaad oo la rabo inuu maaragtay uu ku howlgalo dadka qaybtiis shaqooyinka qaybtooda intay iska diidaan bay mararka qaarkood iyagoonan hiwaayad u lahayn inay hadhow jaamacadaha ka shaqeeyaan ayay digriiga jaamacadda iska sii wadaan taa lama rabo waxaa la rabaa qofka dhinacaas aadaya inuu ahaado qof fiilka raba inuu kusii dhex jiro uu sii kordhisanayo laakiin waxaa la rabaa inaad shaqooyin abuurtaan dabcan annagoo la kaashanayna waxgaradka kale iyo aqoon-yahanada iyo cid kastoo naga caawinaysa waxaa jirta siyaasad dawladdu ay leedahay oo ay rabto inay shaqooyinku abuurto shaqooyinkaas macnaheedu ma aha shaqooyin dawladda loo shaqaynayo laakiin waxaan rabnaa inaan soo bandhigno dadku inuu shaqaysto oo waxyaabaha u badan oo dawladda aad ka arkayseen oo in la dhiirigeliyo maalgashiga in la abuuro khayraadka aan leenahay cid maalgelisa si shaqooyin u abuurmaan iyo in dadka xirfadaha leh loo sahlo
annagoo la kaashanayna dadka qunuugta iyo maaragtay dhaqaalaha haya in la maalgelin karo arday la timaada hal abuur wax qabsi ama wax soo saar hadday xoolo dhaqan lahaayeen hadday badda ka shaqaysan lahaayeen hadday beero samaysan lahaayeen hadday warshado yaryar samaysan lahaayeen iskiilkaas uu jiro iyo hadday fursado kale ka abuuran lahaayeen oo aqoontooda la xiriirta ay barteen runtii waxaa la rabaa arrimahaas in la iska kaashado waxaan aada inugula dardaarmayaa qofku inuu iskiilo kala duwan uu barto inay muhiim tahay jaamacaddan waxaan kula dardaarmayaa inay sameeyaan koorsooyin gaagaaban oo qofka intuu haddaanan manhajka lagu daraynin qofka isagoo arday ah uu dhigan karo koorsooyin xirfadeed ama markuu ka baxo suuqa joogo uu xirfado badan karo oo waqtiyo kooban ah ama 3 bilood ama 6 bilood ama inta hadday rabto si uu u noqdo qofku qof fursad kastoo soo marta ka faa'iidaysan kara oo aan dhahayn anigu taama baran aad bay ii soo martay arday iyo dhalinyaro badan oo shaqo doona markaan arko oo hal meel kaliya rabo runtii sheekhi axmed cabdisamaan halka uu ka sheegay oo ardadu inay wada jecel yihiin inay meel dhamaystiran ka bilaabaan ciladaas annaga ruuxadeena dowlad ahaan waan haystaa kulligood ardadu markay soo baxaan ama wasiir ama agaasimo guudi rabaan oo iyadana cillad kaleeto oo dhab ah oo dadkii ma rabaan inay shaqooyinku si gradual u bilaabaan oo maaragtay si uu horumarka uu rabo inuu u gaaro aad baan ugu mahad celinayaa aadan maxamed cali kelmadihii waan ka soo jeediyey iyo dardaarankii oo u wajahnaa sidii shaqo loo abuuri lahaa horena uu igala hadlo mar walbana taladiisa iyo tusaalihiisa waa soo dhaweynaynaa maadaama uu yahay khabiir ama asad ay ummaddaani leedahay oo muddo badan ku dhex jiray sidii dadka loo horumarin lahaa oo aniguna aan ka mid ahay dadkii iyo jiilashii uu soo saaray xilligii uu tacliinta ka shaqayn jiray iyo in badan oo halka fadhida sidoo kaleeto islaam ciise oo runtii mar walba sida halka la sheegay dhiirigeliya ama uu halkaba ka sheegay inuu mar walba u taagan yahay horumarka haddii dhaqankeenna ay horumarka u taagan yihiin haddii aqoon-yahankeenna iyo siyaasiyiinteenna horumar ka shaqaynayaan horumarkiina uu gaabis yahay waxaan isleeyahay meesha uu ka jiifo waa aqoon-yahanka dhalinta yar ee la rabo inay wax muuqda soo kordhiyaan waxaan rajaynayaa inay dhammaan shaqooyinka furan ee dalka ka jira noocuu raba ha ahaado shaqadu ceeb ma aha shaqadu xishood ma leh shaqadu maraaxil ma kale leh adduunyadoo dhan taasay ka jirtaa qofku isagoo digrii gaar ah haysta ayuu haddana taxi driver yahay ama baabiyeeri ka shaqeeya ama burkiyeer waxay gabdhuhu dhahaan ama shaqooyin yaryar oo kaleeto dukaamo yaryar haystaa waxaa lagaa rabaa adigu waa dakhli aada ku maaraysid nolosha qoyskaaga iyo dadkii kugu soo tacarbiiray iyo taada adigana aada ku abuuratid nolol cusub iyo qoys cusub haddaadan dakhli lahayn waxaa weli culays ku noqonaysaa hooyadii iyo aabbihii kugu soo kalay tiirin iyo tacabdeela inaad weli dul fadhidid oo weli sidii subaxdii aada u rabtid cajeelada lagu dibo taasna runtii waxay ceeb ku tahay bulshooyinku horumaray marka waxaan u baahannahay iyadoo cilmi baarisna lagu samaynayo bulsho in la wajaho in aan isbeddel bulsho la nimaado jaamacaduhu waana muuqataa intii hadda ay jireen dalka isbeddel weyn baa ku dhacay meeshu joogi jiray iyo meeshu maanta joogo waxaa la rabaa in la sii kordhiyo isbeddelka bulsho ee aan ku wajahannahay oo ugu dambayntiisu tahay nolol sharaf leh karaamo leh qanaaco leh in aan wada gaarno bulsho ahaan reer puntland iyo soomaaliya guud ahaanba aad baan idinku mahad celinayaa intii ka soo shaqaysay xafladdan intii dadaal ku soo baxaysay ardada oo ugu horreeyaan maamulka iyo macallimiinta guud ahaan bariga africa iyo faraca galowga intaba waad mahadsantihiin wassalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatu